Asxaabi soo dhawaada maalin wanaagsan haddii habeen ku tahayna habeen wanaagsan. Gaadhiga Leyla calawga horena waa u soo gelinay. Gaadhiga waxaan lagu rabay caddaan qofkii ku doonaya waa 19,000 haddii aad ku doonayso isku beddel. Gaadhi wantana Probogos Fitis Harrier isku beddel insha Allah iyo baaqi haddii ilaahay insha Allah. Dadka qaar baa hadhow odhanaya dhul ma lagu beddelayaa ma dhul laguma beddelayo. Dhul laguma beddelayo isku beddel inta gaadhi aan soo sheegan hore ku soo sheegay ayaa lagu beddelaya. Haddii uu qofku caddaan watana waa 19,000 dollar haddii ilaahay gaadhiga 20,000 baa marka hore la siinaya laakiin aakhir imika waa 19 dollar waa 19,000 haddii ilaahay insha Allah. Gaadhigan waa gaadhi speed ah makiinada saaran 1HD gaadhigu waa Leyla Calawi ama VX ama Land Cruiser VX ama Leyla hadba saa u taqaan insha Allah. Gaadhigu waa brand new ni ilaahay wax siiyay oo dhowr gaadhi laba iska leh gaadhiga xarago waxaan ku uri guriga meheradu leeyahay ku tagaw gaadhiga waa gaadhi Chinese ah ama Chinese gaadhiga faa'iisto waana full decoration waana speed maaha manual waana maaha automatic waa speed ama waa manual hadba saa u taqaan insha Allah idin la kariim gaadhi kale waxa dambeeya Fitis oo isna silfra 2,800 baa la siinaya insha Allah haddii ilaahay ma gaadhigan Chinese weeyaan laga faa'iideysto fadlan haddaad iga daawanayso TikTok teenan dilal.net abti furniture-ka waxaan u raadiyay dilal.net xagoo san soo dhigay TikTok insha Allah alaaba cusubna waa soo geliyay fadlan akoonka cusub ee TikTok-na booqda insha Allah haddii ilaahay taasina isku ogna insha Allah 063242754 WhatsApp iyo call kaasaad iga soo qabanaysaa haddii ilaahay qofkii gaadhi u baahan qofkii gaadhi iibinaya sawirro iyo muuqaal qurux badan ka soo duubo modelkiisana aan soo raaciyo insha Allah wasa modelkiisuna Land Cruiser-ku waa 1994 insha Allah haddii ilaahay kina saaran HD wayni kaade yalla muuqaal muuqaalka la sii share garay YouTube-ka Facebook-ka Instagram-ka Snapchat-ka intaba like muuqaalka ma dheer bay gaarsiin insha Allah. Assalaamu calaykum.